asagana 5 daqiiqo ka bacdi ayaa waxa dhacday in uu sidan u ooyo ila daawado. Halkani waa sawirka qasa, halkanina waa Los Angeles. Qoraalkan waa James Wood oo maalmo ka hor ah. Sawirkiisuna waa ka. Asagana 5 daqiiqo ka bacdi ayaa waxa dhacday in uu sidan u ooyo ila daawado. One of the people who did evacuate yesterday is actor James Woods, who is in Beverly Hills. Thank you for joining us. Talk to us. Oh, my What have you pleasure. seen? Well, we were literally in the exact epicenter of the fire as it started. That's actually a view from my porch. Yep, this That's is a the video house, you one shot. below us Yep. on fire. Yeah. My neighbor called and he said a fellow named Robert Trinkteller was about 5 houses up. You have to understand the Palisades is a very almost like an old-fashioned neighborhood. Sidewalks, all the neighbors know each other. We all have each other's phone numbers, and people are very aware that we're in a fire zone. And in fact, I had said day before yesterday, to my wife Sarah, I said, "Oh, that guy on the hillside hasn't cut down his grass. They got to cut down that brush because there's going to be a fire." And that's the person who didn't cut that brush was the person, that fire you're looking at right now. That's my pool right there. That was the brush below us that was not cut. So we went out. I had a record of the call. In 17 minutes later, we were evacuated with the clothes on our back. Our garage door wouldn't open because the wind was so bright it torqued the door, and we finally got out. When we got to the bottom of the hill, I said, "Oh my God, we have a neighbor who's 94 years old who has dementia." And I said, there were no cars in the driveway, and we would go over and help him get in his chair, sometime if he fell with the caregiver. But I knew he was in the hospital, and I don't know, God was on his side. I decided to call his son in Massachusetts and said, "Hey, Francis, just to be sure." Ma dhahayno wixii ku dhaca waa ka xunnahay sababtoo ah hadday xataa dhihi lahaayeen wixii ku dhacay waa ka xunnahay walaalaheenna qase. Laakiin anagu dhihi mayno wixii ku dhacay waa ka xunnahay, laakiin ilaahay cidduu rabo inuu ka aarsado wuxuu uga aarsadaa si fudud. Dhowaan aragana maxayu anagu wax soo socda ma saadaali karno quraanta. Laakiin 3 bil ka hor buu sidaas u hadlay ama sidaan u hadlay. Sidaas daraadeed waxa ku cad markii tabar la'aan ay jirtona aanan adaab lahayn. Haddaad tabar lahayn aan adaab lahayna dhibku wuxuu ka siyaada noqonayaa intaad u malaynin amaada filan. Run ahaantii waxaan ka yaabay markii dabdamisku imaadeen oo dabka la daminayay, meeshii dabku dami lahayd waxaan arkaba meeshii biyo lagu shubaba dab baa ka kacay. Waa arrin mucjiso ah. Wax badan ay ku faaneen awood iyo dhul qurxan, laakiin maanta ayaga qasoo isku mid. Run ahaantiina qaasatan ninkan ilaahay sidoo uga aarsaday ama nooga aaray. Sidaas daraadeed waxaan dareemaysaa وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا طبعا أنا ضد إسلام هذا وأسود مغنى إن كستونا وحب إسوا أولا بدنا أسود مغنى لكن زين إن سيد أو أهلي أما قابك أو هذا الكوتشي عيان أنا كفر حين وحول هاي سأقرأك وجه دائما حب جوجين مجرته وذا هذا المجيرو عفينا مجرته لا أي كلام فيديو كان أو سيء بنسوا
ayagoo qaxaha lagu tusayaa waxa ajaa'iba wadooyinkii ayaa buuxsamay oo buuxdhaaf markii la yidhi waa daba soo socda carar wadooyinkii baa buuxdhaaf waa la kala cararkii la kala carar xataa baabuurta waxaa looga carara wadooyinka marka ilaahay dadku waxaa waaye uu la jiro ama ilaahay qofku imtixaamayo dabcan reer qasa waa la imtixaamay imtixaankuna waa imtixaan min allaahi muslimiintu dhanna waa la imtixaamayaa laakiin imtixaankooda kala duwan sidaas ayadoo ay tahay annagu waxaa u baahannahay sabar aan la raaciyo annaga ilaahayna waxaan u weydiinaynaa walaalahin inuu dhibaatada ka baxo laakiin fideogeena waxaa ku socdaa dabcan ninkan siduu u hadlay iyo magaaladii sida ay noqotay oo ku qotoma hadalkaygu maa haddii aad dib usii raacday u fiirsatid waxyaab labaad arkaysa CNN baa ka tegay warbixin dabcan asoo laga hadlaya CNN 5 daqiiqo ka bacdi markuu dabku dhacay ama 10 daqiiqaba baa fideogan laga soo duubay